يا تا سمرون دك يا تا دلبهانت دك يا تا وسيقي دك يا تا يا هوي بح بح كلها مركب يا تا بجارتين سودك ما انت صيح هوي انه وحش كدها مكان آديات ها ما انت صيح وانا ندري انا قلبي يسكون اكثر لكن هذا محاي ما دون يا تا يساق ساسا ما دون weli waxaan ku sheegay adkaysi male adkaysi male baqbaqdi halka baqal anagu inta kun qof laga dila maanta habeenka daba dhisana meesha naga burburiyo dadka naga leey dadka aasana ayu hadii laba qof ay hawiye ka dilaan weli saaq hawiye dila maqal hadii laba qof hawiye wixii asbaa ku dhifto lafaha labaas qof sidee hal sano laba sano 10 sano lafaha si la wareegi doonaan hawiye naga dil labada qof ya حقني وديلك كما دغدغا لكن حق خليقه ayay ku degdegaan dil kuma degdegaan waxa sultan waa laga jawaabaya aamin soo dhawow aamin waxaan ma gaari baa doon malayna aamin gaari baa السلام عليكم سلطان soo dhawow qadra سلطان waa salaamay eralkana waxaan arkaa daayir Cabdulla Cali Soomaan arkaa haliyaygi la holin waaya geesiga suldaankaygii bariga iyo bartamaha shanta bartamaha suldaankeega horta waa ku salaamay suldaanow arintan waa ka dhibanaya aayadaydan ka dhibanaya aadna waa idin salaamay horta waxa weeye khalad baa dhacay ceeb baa dhacday ceeb ugu weynayd baa dhacday wuxuu yiri doqonta u shaagteeda ku dhufaaday garan weydana gagawgaliye anigu fariin baan halkan ka dirayaa toosan u dirayaa hawiye weynaan u dirayaa waxa leeyahay la soo raafo wax allaale iyo wixii meesha jooga ee ururiska maryaarorka qurunka ee saaqna ma qashinka hala soo raafo aanay ahayn hadda si degdega wixii halka ka dhacay ceebtii halka ka dhacday xal laga bixiyo raali gelin laga bixiyo oo waxa weeye waa la gardaran yahay oo wanarka hawiye waa laga gardaran yahay oo wax raali ma jiro khadraay wax raali ma jiro gacan baa ka celisa qaniinjo ka ana leena darikaadi waxa weeye hadii laga bixin waayo amar baan halka ka dirayaa degdega amar baan ka dirayaa waxa weeyaan meesha 3 iyo 4 sanadood ku xidhanahay aanba maanta ka qaawana ka salaaqinaya u jeedaan madaxiyo meel walba ay go'aan tahay war waxaan wax ma naga soo gaadho kaale meeshan xukumo waxa naga kala dareeriya uska gan waxaan dawmad maaha ummad اعتراف مع اعتراف حصل شيخ محمود واكاسو ونيكي كليها wax furfuray barigood siinaay wadawi maanta waa talbaabada la isugu dhifto waadin اعتراف was 4 sanadood ma meel ku xidhanada wal اعترافي warna mar اعتراف bardi ku reedna anigu waxaan baxay muqdisho u socda laakiin de maxay taala waji xumo iyo horana waxa ma naagaysan wax u sheegin musashaaniyo waxaan meesha ku wato qashinka sida ugu dhaqsaha badan waxa laga yiraahdaa hay soo daargiso marka tagto lagu xidhiyay anagu waji waxa ma geysan bay wallahi hadi hawa seeyo cuna uraya musashaan waa fataal yoodaga xunayna kaahay waa qashin way namar daahira waa tirahay hooyadii wase oskagiyo islaantii dukradiga noo dhukray warmada ka xishooda bila karaamati karaamada Allah idinka qaad anu ma walba jeclaay runtaan u sheegay runta ay ku dhaceen karaamada Allah idinka qaado namar اعتراف dara ma jiro xasan sheekh maxamed albaabadu idinka xidhanaya odaygu xumay kala marooray musashaani kala qalluucay ku daafad weey war waxan aad baan idin salaamay daahirow wax ku daro ma garanaya anigu deeye suldaano waa yaabana wala soo dadku waxay soo qorayaan wala soo daayay soo qorayaan oo tigirka daahir ba ka bixiyay bari ba dhoofayaan dad ba soo qoray wala soo qoray waa been suldaanuna ugu cabid daahir gacanta ka qaban oo kale daahir wiya maada ka masuul qofka dhoofay lacagta in laga yaad maxaa sameeyay waayay ma u dowrsadaa ما هويك daahir waa haliyay weeye la holin waayay ma damir buulay gabdhaha xawra la xiray baramacni awra meel iga xiran xawrada gabdhuhu moogsoontahay suldaano والله ورد لكن هوية كلنا في عن ما إنك قرب يسكن نقطة ما في عصامة صوتها حبلها تقول كدي وسوق بحيو
in kharashka kale lagu ogaada fiican ama isaga kharash loo soo cishaa fiican soo ma laakiin haddii qofkii la xidho ama qofkii la tarxiilay la daahir la soo hadlo marka waxa la moodayaa daahirnimo hawiye ka masuuliya waxaa la yaabay nimanka tujaarta ah ee saaqaaye ka ganacsada muqdisho ee hantida ku leh hargeyso ayagoo jooga horta ilmaha gabdhaha lagu xiraya weliba tikidkooda loo la'ya ee aan dhahin war inta dowladda la hadlaa dad gabadhii xirtay tikidada kuwaan hoo sababtoo hawiyaha waxay og yihiin inay iska wada hurdaan hawiye والله وهردان هدي مركب halla kaco sida loo halla soo raaso هدي متوال بكهل لهاين هذا الشكل انت ما قاعدين anigu daahiro farinta u dambeysaan idin diraya waxa weeye meesha waxa jooga halla soo raaf halla soo qiciyo musakala maroore wixiisa diyaarad ugu soo gura taalabu shag la weeye waxaan uska gaa soo gura wax walba soo raaf oo tiyan daahiro dawladda hadii ka hadli weydo ilmaha suuri waa sida sheegaysay kuray badan oo waxa Soomaaliya jooga lacaga iska yar raba kharash yar oo ummadooda tartiib kala fadhiisinaysa anoo konton qof haddaan u tagno muqdisho dhan safay karnaa konton qof kaliya soo tag toban baan bixi baa $10 bixi baan ku dhaho kala fadhiisi $100 Musa Dooli waa soo celinaya magacii Musa Dooli magacaasaan u bixiyo ku xanaaqa habiine kala jeedkii la wasa Musa Dooli Musa kala jeed هذا خضراء Somaliland ممنوع ولا قردي دق معايا والله قردي يا والله dad caalam baa la sheegay doonata yaa والله هديت واحد والله ماني والله هديت كذا كديت واحد والله مو رانيو والله rag baan dhalay والله isay dabada u qabanayaan والله inaanina kayn odayga xira xiran iyo adeerkayna kayn iyo kan kale xiran midna waxay ka qaadeen waanan ka degayaaba laakiin ma dadka fanaaniinta xiraaya ee wariyay xiraaya qarnigan ku jira horta intraafka loo siin kara wariye ayaa xiraba adduunka waar Cabdi Maalik Culdoonna waxa loo xiray de meesha wax kale meesha waa barkhaniis 14 nin khaniisiinta meesha jooga waa nooc kale لكن كان ما سيدين سالكير من ديك سيدين إما كورتا habla ama keenaa bilaal halino dad baa naga maqanay dadkeenu markay soo yimaadaan ee meesheen ku hubsano al halli doona daahiro hadalna noo xidhnaado soo maaha hadalkaas ka xidhnaado markay dadkeenu aan ku hubsano inay wadankii noo joogaan yaa tigida ka baxa 100 qof ka soo dadku degan yihiin 100 ka badan bay aad u xirnaaw Soomaaliya imika waxba inala halhalin dadkiina markaad soo wal cishatiin ilaahay nabadna igu keeno liinta tusaya ka liinta urwaad islaam daayir waa ku salaam abti sultan waa ku salaam markaa soo dhow Allah yaslim aad iyo aad urwaadti waa ku salaam daayir cali sow waxaan jeclaan lahaa in xagga luuqa iga soo wacdid iga soo qabatid kulay war aniga baalkii la jiray waxaan joogaa Kenya birita waxa u socdaa Muqdisho gabadha Sumiya baan rabaa in hadii ay ku roon yahay xogaa wixii waxaan ku leeyahay si kala ii soo yargaareen marka waxaan rabaa in wax qasamo garat ana ku diyaara iyaak xamar joogo dhan fariintay gaarsiya diyaara qof kasta ee haweenimo aaminsan inay gabdhaha difaacata aaminsan wax allaale waxay u baahan diyaar oo la adeer gacaliya dadkan marqaama meeshii degayiin ana ilaahay baray adeer marka iska dhaafadu luuqas igala soo xiriir waana ku salaamiyaa intaas baa meesha u soo koray wixii jawaabana ana iga sugaysay wixii cabaada oo Muqdisho ka dhanka ay way daahiro talabaadna ma loo baahno dad yaro masaakiin oo qoosay loo garanay inaad wax ku dhifatiinba dadka waaweyn ee la garanaya liinta saara xildhibaanada xigeen hawaakaas markaa baa la ogaanayaa in dadku habluhu ay dad leeyihiin ummadan ay dad leeyihiin waxaan ku leeyahay dadkan la garanay loo qoonsay la leeyahay waa reer Somaliland liinta saara liinta dadkaas loo baahayaa maaha dadka yar masaakiinta la garanay haddaan liinta saartin waxba u moodhimaysa yaka mama iyo tusiyo danahood toban maaragtay TikTok inta u soo wala qaateen ku sidaay ayu caayay maaragtay miswole abon ka baxay wad maasantahay daahir aamina wad maasantahay adiguna sidoo kale walaakay walaal banaad gabadha la xidhay ee la leeyahay waa la sii daayay laakiin daahir baa lacagtii ka bixiyay oo berri bay u dhoofayaan magaalada Muqdisho walaalayaal kabacdi markii waaran loo jaray si magaalada ay uga baxaan si degdeg ah marka waxa la doonayaa
bal reer Somaliland in laga fiirsado dadka lagu degdegayo ee dib loo celinayo ma la xidhayo waxay noqonaysaa sida wajigabax weyn bay noqonaysaa waxay noqonaysaa dadku inay isku gudbi doonin ama xildhibaanada ama dadka caanka ay noqonaysaa iyagana in dib loo soo daadiyo si waxay noqonaysaa toosa aqoonsigii dadku raadinaya waxay noqonaysaa dhagax bay noqonaysaa dhagax waxay noqonaysaa qofka xildhibaan ee jooga in la soo tuuro ayay noqonaysaa oo la cadaabay noqonaysaa walaalayaal ama diyaarad la soo saaro marka ha ku degdegin waxyaabaha noocaasa aqoonsiga ilaa la helayo dhalinyarta soo dhaweysta walaalayaal aqoonsiga 230 sano la sugayo haddaad ku degdegtiin filimaanta noocani waxay nagu noqonaysaa Somaliland walaalayaal aqoonsigeena cirka ayuu ku laalmayaa oo wax kasta dhagax ayay nagu noqonayaan maatidii iyo ciyaalkii dumarkii haddii lagu soo noqdana waa meeshii ugu xumayd wey filimku isku fadhiista walaalayaal anu intaasaan iga tegay hadalka inaguma sii dheeraanayo wanigoo suldaanka ah wariyada yarna ah waxaan leeyahay intaan ku kulmi doono barnaamij la mid ah ama waxyaabaha soo kordha waxaad igala soconaysaa bartayda TikTok-ga haddaad ku cusub tahay waa inaad hadda falow soo tiraahdaa si waxyaabaha degdega ee markiiba aan soo geliyo ama ciyaaraha markasta la baashaalo qofkii baashaal doonaya siduu ula socdo waxyaabaha degdega si aad u ogaato adoo gurigaaga iska fadhiya adoo shaqaysanaya adoo jiifa